ila jooga oo dhinacayga taagan Khalid Liyo oo kamid ah xulka gobolka Cayn galabtan halkan laba gool oo kamid ah goolasha xulkiisu dhaliyay ee dabcan u dhaliyay Khalid soo dhawow guud ahaan tartankii iskaga hadheen bal dareenkiina iyo ciyaartii galabtii wallahi alxamdulillah kulli badiyaanba waa bahdeen marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan anagu sidan ka xog badan soo laabano waana laga badiyay maanta anagu waa badinaynay kooxaha horena waa dirnay qadarka Ilaahay laakiin waa ku qanacsanahay laakiin waxa jirta u malaynayaa anigu aan cambaaraynayaa maamulka wasaaradda Puntland sababtoo ah meeshan cadaalad ma taalo cadaalad markaysan oolinna waxa lagu garan karaa nugaal waxa maanta lagu hayay albitarayaasha inaan la dagaalano mise aan albitarayaasha u gacan qaadno mise ayaguna noo gacan qaado waxa keenaya maamul Puntland halkan ka jira ma dhici kartay talaabo kale oo mar la intaas gacan qaadku iman sax halkiina u raadsanin ma markana sababtoo maanta naga baadwaana alxamdulillah kulli hadda hooyay waa ku laabanayna anagoo badqabno Ilaahay caafimaadna siiyay ma sha Allah tartankiina meel fiican waa ka soo gaadhnay waxaan rajaynayaa anagoo sidan ku xog badan oo dadka iyo dhammaan anagoo dhanna isku hadafa inaan soo laabano oo nimaadno insha Allah ciyaar qurux badan baa soo bandhigteen laba goolna waa dabcan waa dhalisay goolashaadii waa sii dheereysatay ciyaaryahanka labaad ee ugu goolasha badan baa dabcan haatan tahay inta gobolada socdeen kharadaadka is leedahay marka laga yimaado tan garsoorka aad sheegtay maxaa la isdhihi karaa waliin kaga badiyo kaleeto fursado badan waa helayseen wallahi wax laga badiyo ma jirto qadarka Ilaahay mooyaane sababta gool badan baa iska cunay laakiin kharadaadka koowaad ee laga badiyay garsoorka ale kharadaadka koowaad in laga badiyay maamulka Puntland baa ugu dambeyn hadalkaagii hore nugaal maxay dhirtaa ku soo adkaysanaysaa nugaal ma haday iga badiso ay koobka iga reebtay yaadii kalaba nugaal dadka wax ma markaa maxamed cabdisalaam boqorka waxa uu hore u ballan qaaday in ciyaartoyda gobolka nugaal haddii ay koobka gobolada Puntland ay qaadaan finalkana ku guuleystaan uu dhamaantood u diri doono dalxiis wadanka Turkiga ah haatan garoonka Miraa waa ku sugan yahay galabta wuxuu goobjoog u ahaa oo indhiisa ku daawanaya ciyaar ay wada dheelayeen Cayn iyo nugaal 4-2 ku soo dhamaatay dabcan marba markaas dambeysana waxa la maday in xulka gobolka nugaal ay u sii dhawaanayaan safarkii Turkiga ballan qaaday bal soo dhaweeyo dareenkaaga hortaniyo waad kaaga mahad celinaa habeenkii liya dhanada Turkiga in ka xaynaya guushay bilaabeen bay hadda ku socdaan meeshana hawshina meel fiican bay maraysaa insha Allah madareemi ka dhalinyaro Turkiga loo kaxaynaya qaban qaabadoodii hawshoodii waqti ay qaadanaysaa laakiin insha Allah bidnillaahi kariim dad badan oo mas'uuliyiin oo ay kala qayb qaateen oo maayar ku horeeyo ganacsato dhalinyarada aqoon-yahanada gobolka nugaal waxaan rajaynayaa insha Allah haddii Allah wadan markii koobka aanu qaadno inaan isku wada imaan doono haddii Allah wada idmo hadii bay dhici weydina qaadi weydaan oo labada xul ee mudug iyo Highland labada ka soo baxay finalka mid kamid ah uu qaado safarkaas waa baaqan doonaa xulka gobolka nugaal halkan waxa uu sheegay in xul safarkaas baaqan doona miyaa dhigi karaa mise hadii guuleystaan hadii kale taba waa shuruudo iska aad u adagtaa shuruudo naadigu haduu guuleysto haduu guul dareystana wuxuu waa qadar Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa og laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah aniga inay guuleysan doonaan waa u jeedaa galabta wixii dhacay tii hore wixii ka dhacay tii kale wixii ku dhacay laakiin waxaan rajaynayaa oo aan aaminsanahay xulka inuu soo baxay haddii Allah wada idmo laakiin ma sidii karaa safarka shuruuda wuxuu wataa inuu guuleysto mise waa labadaba maya shuruud wuxuu wataa inuu guuleysto waa dareemi karaysaa kharash baa baxaya dhaqaalaha baxaya fiisooyinku waa iska dareemi karaysaa marka waxaan rajaynayaa insha Allah haddii Allah wada idmo haday guul Ilaahay subxaanahu wa ta'ala de guul darada rabbi baa gacanta ku haya anoo gacanta ku hayna wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qoray waay ugu dambeyn anoo kaga mahad celinay fursaddan siisay dalka Soomaaliya uu baadan yahay meel loo dalxiisaa jira inaad ayl iyo dhulkii dalxiiska iyo baargaal qandala dhulka Soomaaliya aad ku dalxiisaysan ilaa Muqdisho maxaad u aadan xagga iyo Turkiga dhalinyarada geysanin niyo wada dhalinyarada barnaamijka qola kala u ballan qaadayo marka aniga waxaan noqonayaa qoladii u horeysay oo aan xagga dhalinyaradu maadaama ay buuq galeen qaylo galeen muddo laba bilood xareysnaayeen waxaan rabnaa insha Allah binaadna ay gudoomiyahooda inay soo baashaan muddo bil ah bil ka badan insha Allah maqnaan bishaas soo baashaalayaan magaalooyinka soo marayaan soo noqonayaan haddii Allah wada